إلهي بقى قدري وحول بينه وقدر أنا maanta waxaan filayaa waqtiga aan waridaad joogay ama salay soo magacaabay xalay soo magacaabay 28 bishii shanaad 2015 toddoba sano wax yar baan joogaa laba aha waqtiga waa cimrigayga bad aan bidaar lahayn baan inoo yaro timan ma tara bidaar baan leeyahay kulli oo ku qaan gaaray meesha alxamdulillah rabbil caalamiin bulsho ahaan wax xun ma jiraan laakiin waxa yar waxaan taariikhda dib ugu noqonayaa maanta kale anigu maalintii la igu wareejinayay waridaad maanta kale maalintii la igu wareejinayay halka ay taagnayd iyo maanta halkii taagan tahay in yar baan guud maray maalintii aniga la igu wareejinayay shaambadda la igu wareejiyay totally wax kale oo macnii mas'uuliyad bileys ma joogin gaari degmo ma shaqaynay shaqaale kale ma shaqaynay xarumadooda alla ila waxa shaqaynayay iskuulka hoose dhexe ayaa warida shaqaynay waa waqtiga la igu wareejiyay halka waxa ka dhisnaa laba qolo helti boosa maxaan kale ku daraa laba qolo malcaamadii hore ee qadiimka iyo laba qolo yana qabiya oo jiingada la gala degay oo ahaa xanaanada xoolaha arrimaha bulshada ama nidaam dawli wax ku shaqale qofna horta marka hore jaabkiisa kama soo saaro kamana keeno waxa lagu qabanayo qof waliba ilaahay nafsiga ku soo beey waqtiga ku soo beey qofna mar qaraar buu ku soo marinaya sallallahu alayhi wa ilaahay inkaar kuridkiina soo maray muxuu way xitaa hawada istaagaysa oo wax alli wax kala soconaya ma jiraan qofna nasriga aba la socdo macay sawi waxba qaban معني وإلهي قف بوقتي وكباقة الحمد لله رب العالمين تا إلهي بان نقول علني يعني وقتي وناكسن نقول صوباق عيد معني أن العكس وغاري يمتري عيد أن معي أن دغالك وروني يمتري لكن وقتي جاي وناكسن عيد أن حتى هو وحلاقه وقتي جاي وناكسن أما سوي حاني ما وين أن تصار أهان وقتي جاي شوقي hal wax baa qabiya naga noqday halka waxna laba intii aniga hadafkaygu waa dhisme degmadu yeelato iyo iskadu yeelato taasina hal caqabad ku noqotay taayiri ka caawin ma caawiye bari hada akhriyo waa tiraado xarun degmaan u baahanahay totally cid ku dhisay ma jirto dawladda dhexe lafteedu say ku dhistaa way adagtahay bulshada looga baahan yahay wax wada qabsigeeda iyo maamulkeeda inay wada dhisato marka xarun degmo hoose dawlad hoose la rabo wali alanka waa qabiyo gudoomiyuhu waa fadhiya waqtigii ugu dambeysay aniga gudoomiyuhu waxaan ku jiray qorshaha sidii lagu heli lahaa xarunta degmada marka gudoomiyaha macni waqtigii ugu dambeysay war time kan macni waxa dhacday in qolada banku ay yara xidhay deyminkii la qaadanay oo sanadkii cusba kala wareegiisa taasi waa shay aan isleeyahay maanta qabyad kaga tagtay waana bar bilaabanoo maayir cusubina uu ka sii bilaabi karo gudoomiyuuna uu wax ka ogaa oo la sii kaxayn karo ta kale intii aanu joognay waxa macni xaaladaha wixii qabsoomay markaan guud maro xagga waxbarashada kale markaan ku horeeyo waxbarashada waxa jiray dugsi hoose dhexe ardayduna aad ka bixi jirtay guud ahaan gobolka Saraara ma jirin wax dugsi sare ilaahay khayr iyo xasanaad siiyo waana bil Ramadaan ilaahay wax khayr qabaha siiyo ha ugu bedelo dhowr jeer horena aad iyo aad baan uga mahad celin hadeer uga mahad celinayna jaac maxamuud aadan oo hudheel kanaynu hadeer hoos joogna lahaa ayaa habeenada kamida waa waqtigu dhulkan iibsaday ayaa waxa dhacday anagoo aynaba joogno dhulkan isku qabsi baa ka dhacay sidii la socoteen muddo ka xayir aakhirkii hawshii waanu isla galay saaxiibkii waxaan u socday hawl inaan dugsiga hoose dhexe ee waridaad aan wax ku daro waxaan ku codsaday jaacow wad mahadsan tahay mar dad hawsha macni adigu iska soo xilqaantay dugsi sare noodis waan ku wiri dugsi sare iskiibu marka hore si qorshaha ugu jirtay inuu wax qabto laakiin dugsiga hoose dhexe maxaa ka dhiman buu dugsi saraan ka codsan oo soo xiri habeen dambe fiidkii tolmiyaad habeenkii dambe fiidkeedii
ayuu barako axmed barako oo ahaa oday qandaraaska qaatay ay fiidkii daba noo yeedho wuxuu inta dugsi sare ka dhismi karo nashqadeeda ii kan sidaasuu ku dhismay macnihi waa qofka kaliya ee macni aanu hayo ammaan iyo mudnaan aan la soo koobi karin deegaan ahaan iyo bulsho ahaan waayo marka hore isaga ka soo go'o markan dambena wixii aanu nidhi hadday maalinkii oran lahaa waa 20 qol isku weera hadalka muu soo celin waayo siduu uga go'aan qaatay dhismaha wuxuu yidhi xadii keenta inta uu cabirkiisu noqonayo cabdiqani israaca adna cabdiqani dhulka uu kaaga baahan yahay markuu soo jaangooy dhulka uu taaga waynu wada ogeyn subaxii dambe maalinkii afraad baan idiin niman filay ayaa haddana macni la dhagaxay taasi waa waxbarashada oo dugsiga sare maanta waa la dhigtaa waana dugsi shaqay caafimaadka yimi waxaa jiray 2 qol oo healthy boss ah oo waqtigii hore ciise gacanta ku hayayba waqtigaa meesha yimi waxaa dhacday in isaga laftiisii dayactir lagu sameeyo hal qol anagu waxaanu isku macmacaysaan doonaan macnaha ciise waa fadhiyaa aanu ku darayo kaasina uu mid saddexaad yahay inta markii la qabtay waxaa timi qadar charity baa wax alhuda yaana khaldamin alhuda waxay keentay 5 qol iyo masaajid 2 qol ba iyaga laftoodan caafimaad ugu tala gashay waxaanu ku nidhi bal suuqay qabadsiyo 5 macni say suuqay noqdaano waxa iyagu anagu ma waxa iyaga meel baan ku wada dhisanay 5 qol maanta malcaamada ku shaqeysa oo iyana halkaas ka dhisan yihiin oo macalabadii caafimaadka loogu tala galay oo baahidii waanu ka maaranay maadaama oo la dhisay MCH ama MCH way oo iyana waxa dhacday wasiirkii qorsheynta wasiirkii arrimaha qoyska ay hinda xirsigaani halkan waa uga mahad celinaya waayo qofka lama qariyo libtiisa ama mid maqan ha noqdo ama mid jooga ha noqdo maanta waa sheegaya qofkii in yar u qabtay iyo kii ka xumeeyay in kasta ay rabaan too ka xumeeyay ana waxa uga gali laakiin hindi macni waanu ka wada hadalno xukuun meesha waa bila MCH macni waqti badan juhdiya talaal bay gelisay waa wasiirka kaliya macni hal qolo dhisan waridaad keenay huwa deegaanka ka soo jeeda dhammaan isuge mid hore mid hadda jooga mid waligiiba soo joogay amaan iyadaan uga haya MCH ka weyne lagu shaqeeyo ilaa 10 qola ee geedkiisii leh ee solar systemkiisii leh ee talaagadii macni qaboojinaysa leh dhamaanteed lagu shaqeeyo tacabkeeda koobaad iyada lahayd caafimaadka markaan halka kaga gudbo amniga yimi amniga saldhig baa dhisan in muddo dhisnaa ilaa waqtigii marbuu ila dhismay waayano waxa la bilaabaan filayaa bishii lixaad baan filayaa 2015 meelaha imsa 7 biskood meelaha sala bilaab muddo kadib ciidan baa la keenay in badan wacni wuxuu ahaa bilaa gaadiid gudoomiyaha gobolka waxa deer halkan fadhiya oo gudoomiyaha nasiibka uu yeeshay macni kaana gaariga aanu helo waayo waxaanu doonaynay 6 sano oo ka horeysay taliyaha maali ilaahay naxariistay ina fadal maalintii u dambeysay waad halkan aan tigooyo isu dhigan ilaahay naxariistay oo ciidanka macni 6 askari maalintii u dambeysay si ballan qaadkiisu ugu dambeysayna ilaahay ma qorin inuu macni si noolaado u dhintay ilaahay naxariistay muddo kadib waxaanu sidii ugu daba joognay bala saabka wasiiradii hore la bedelay maxamed xaaji aadan baa isna hawsha aan ka harin ilaa iyo ay macni soo gabagabowday amnigana maanta meel fiican ayuu marayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin oo meel wanaagsan ayuu marayaa oo maamul lagu shaqeyn karo waayo ciidan tobaniyaaba jooga gaadiid baa jooga saldhigi baa jooga rugtii bilayskana hal qol ayaa ka dhisan markaan taa halka kaga gudbo wasaaradda maaliyadda iyadana macni kastanka meesha laan u ah 2 qol oo jiingada baa uga dhisan oo gigidaas ay markii hore wax ku jiri jiray si loo ogaa ama waab yaro halka ka dintay bilayskii wadaarsan jireen iyo yaadgu markay ka dareeraan laakiin maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin aad buu juhdiyo dadaal badan u geliyay maamulii hore kastanka calibi
isna waa ku amaanan yahay waayo wixii waridaad loo qabtay qofna tuurta ku qaadan maayo qof waridaad baas kale cali beey haduu maanta taa sameeyay macay waridaad wixii ku shaqeynaya wareer waridaad bay noqonayaan ciiday u dhisantay waa waridaad magaalada wax ku ah qofka macnii wixii uu ka tago dadka deegaankaas kale halka marka hore ma dadku u yaqaanaan in qofku hadhow tuurta ku qaadan doono taana markaan halkaa kaga gudbo waxaa jirtay saan hore uga dhawaajay xanaanada xoolaha laba qol ahaa oo jiingadii sare lagala dagay oo looxii gudin lagu garaacay oo ciyaalku ku soo kaacaano halkaa kaasna hay'adda Save the Children wasaaradda xanaanada xoolaha iska kaashaday in labadii qol dib loo ribeedimo afar hoos laga dhiso konton lagu dhuftay bay konton mitir oo geer shabeegana lagu wareejiyo iyo waliba gaari qabaalo cusub iyo shaqaalihiina la keenay taana wasaaradda xanaanada xoolaha oo uga mahad celinaya iyo waliba hay'adii fulisay ee Save the Children markaan halkaa ayana kaga gudbo xanaanada xoolaha waxaa jirta riig bay waridaad lahayd biyood intaan joognay kullay waxaan filayaa laba jeer ma hal maalin gudihiisa marka lagu daro malay ugu dhaweyd wala saddex jeer buu jabay oo markasta bankiisu xumaaday cilad gashay taangi horena muulayo taangiisu hore wuu guuray iyagana waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinayaa wasaaradda biyaha iyo waliba mudnaanta koobaad waxa iskale hay'adda Ogaso tiraba saddex jeer bay kicisay markii ugu marka waxa mala 48 xabo soolar ku xiran taangi 250 foosto qaaday ay dhistay marka soorta keenay taangi gaana naga caawiyo mid 250 foosto bay dhiseen way kiciyeen waqti kastuu macni wax ka sii noqdana way u dadaali jireen Save the Children waxaan leeyahay Oxfam hay'adda Oxfam aad iyo aad baan iyagana taas uga mahad celinay guud ahaan waxaa dhiman bulshadu inay wax qabsato hortayada ka timaado abeen dhaweyd baa wax yara ma jireeyay waxana ma jireeyay wax kala baa ma u qabtaan waridaad inta anigu joogay inaad 1 milyan iyo dheeraad caawima qabtaan mas'uuliyiin kartaan taa maanta inta 1 milyan cunayna inaguma yaala waxaynu inagu $1 isu geynay ma jiraan runta marka laga hadlo waxaa jirtay waqtiyada qaar 1 month halkii 40,000 cadaanka lagu qaaday inay $1,000 iyo 8,000 $100 waraashnadu dheeraan habeen dhow bixisay 1 milyan abaf bay noqotay waridaad ahaan macni $1 aad sugaysay ma jirto wax badan waxa loo baahan yahay bulshadu ka ku siinaya waa qof adigoo kala wixii isu keenkeen maaha in dadku ay noqdaan shimbir buul ku jirta waa la arkay shimbirtu markay dhalato waxay sugtaawun hooyadeed haddii xitaa cadow yimaado afka kala qaadaysaa waa taas looma baahan laakiin seen tacab iyo juhdiyo dadaal igama aha xumaan laakiin se way ka dhiirigel wixii qaldamay waan dareemayaa maanta waay wixii aan yiraahdana maanta naxri igu qaadi ma saaroni iska tagayaan xilka ay ahayd bahash waay looran ma hebel buu jeediyay oo nin socday waan laakiin wixii ka qaldan weydiisi sheegaya insha Allah midna iga raali ahaado ilaa nin tagayaan hay macal gudoomiyaha lambarka ku idinku raali baad biska ahaanaysaa intaan dooraan haysanaya macni gudoomiyaha la sii dardaarmaya waqtiga adduunka ku dheerayo raali adiga ahaanaysa waxaan markaa uga socdaa bulshada waxa loo baahan yahay anigu maanta markaan imi iyo hadda waa kala laba nafsi macni dhinac waa kala laba nafsi waa kala nasiib fiican حسن معني نظام معمول intuu doona hal eekaado ama hay'ad dawladeed oo shaqeynaya ayuu madax ka noqonaya barmaanta bartiyaan kabil anu ku qabsaday bay step by step kiiga sii horeeyay oo ka daraa midba ka dambeeyo waxa loo baahan yahay inaad talaabooyinka dib u gurin afraad socoto xasan waa kan annagu saaxiibaan nahay rag isugu dhowaan mara xasan wuu shira kuusay wuxuu Cabdiqani waxbaad ka qaado ilaa uu soo hadlin mo muddo dambe ayaantii dama soo waco ku wareeda waxa istilxil baad ka qaad maxay ila soo hadlin
أنا صقرع سوي ما صقرع حكوري ما بهني أنا ميهي قف وركو طالله نحلله أنا حدان كوبريري وحكوري حدان كورين دجال كنوع عسى كل جلية نصيب كعقب أنا كيجان قوية لكن سأنا ضرب كامير كمان ما كان ويا سوايل كمجال هذا كم يلون ولا خبر ميت لا بس ده أنت بون ولا خبر وحكور ورني ورياض وأنا أجر كشقي هكشقيني حمانتي أنا وين كتلي هدي حتى أنا إلى شقين لايد كان لا شقي وأنا كل شقي ويوقف كمان في الدرين كرا عقبة يسوي هرتين لكن تدكم ميت بيقانانو وأنا قف كجراس كيس أنا وجارسي سنين أرمله ذي أما دات كبا كتلاب سنين هدي معني هبل وحكويال أنا قبو ما هتأثر رجعني ماذا نكرجي وكخرجان كرا أديك محل وجس بالشرع يمكن أنت هدي أنا روح حسن بان عارض كوهان وحي ومدة وكردي عقابته حسن عقاب ما قوانده لكن بالشرع ورياضنا مع عقابته حسن وجون هدي هرومارك ديجانك qofku wixii ku kordhayay cagaas doo maamulku qabay hebel ku xumay waxba kama xumay laakiin umadu wax ka xumay waa inuu dareensanaada war qofkan uu doono haba xumaado wuxuu doono ha noqdo laakiin si aad u danta bulshada arkayo aad ka dhex arkayso inuu halku u socdo ay tahay ku raac wixii ka gaari halkeed dad ku dhaqaay gurigeyga islaanta biyo u dhaami galabta taasi waa marxal kale laakiin wixii umada danteeda guuda markuu kaala hadlo أما أدو أركتو إن دنت هذا كل شيء نذكره على ومهي ووقت رمضان كل قارتين تراك بدن بين السوق الله ما حمل لسان هذا البدن هذا أنا مرة بوحلا أنا حسوسنا وردات بالشديد وبدن تاي حن محل عينها كان ينوجس وتشيدني ما ولا واحد إيمان ولا سنة وحكارنا ما أركب الشكاب معني وما إمسا صدحي توقف بها صح صدحي تنبانو يا مرحبا تضبط ويقدم بيش كلية عيدان أورانا يو ورياض يواد مهاتسنتين دانت بالشدة خورمير كده تكون مهاتسنتين صدحي توقف انت الله تنكا ساكت أرك همك عرف وايو أنا قم ما نان ديران ما نان أرق ميلا يسكو أبابلين ما نان أغي haddana haba yaraatay waxay ka shaqeynayeen ama haba adnaatay juhdi bay hayeen iyo dadaal ah inay danta waridaad hore u mariyaan waxay qaban karaan qabtaan qaar baa lahayn nimanka miyad u shaqeysaan eeg abdaqaan u shaqeey waliba xitaa wixii waa laga kaxaynaya maamulkii qofkan bala dul saaraya xakuuri habeen baa saragnaa filayeen mala iyo hablaha waxaan kula dardaarmaan ku ruux badan baa la idin oranaya idinku meesha aad u socotaan haddaad qastigeygu leeyahay aniga shaqeysan hadda iska dareero iska kala tag لكن هذه قصتي إنه هاي نظوري هذا حقوق بتاعي واحد بدن بالي نورانيا ودها هيستنا كلا حنين يجينا وحن لا هاي halka ka sii wada bulshaduna iyaga ha ku dayato aan cid kale u tilmaamay maadaama rabtaan inaad horumartaan iyaga ba ku dayo intana waa tusaale idinku filan waayo qofku markuu danta guudtiisa uu ka horumarinayo waa tusaale wanaagsan markaan taa inta kaga gudbo waa waqti dambe oo kullay hadal ahaan lagama buuxshaa Soomaalidu ay ku maahmaan wax badan oo ka tagaya horta marka hore dhammaan ummadda islaamka meel joogtaba gaar ahaan bulshadii aan madaxda u ahaa aan xukumayay iyo aakhiraba iga saamaxay waayo ma jiraba ila tahay aniga hal qof oo maanta halkan fadhiyo oo oranaya baloor ban abdaqani iga qaado hebel iga qaado ama isaga iga qaaday farqiga taag la helaya lama soo helay hal qof oo oranaya abdaqana baloor iga qaatay ama isaga iga iibsaday hebel iga qaado haduu jiro farqiga taag laakiin maamulka wuxuu keenay ragga waaweyn halka fadhiya inta badan qaaran gacanteedu iskaarin way yiri xasa kalimka maayirka lagu wareejinayo isaga xisbaanti gudaha soo xir ma beenba odayaasha halkan fadhiya qaar badan ba gacantiiga gaad maamulka keenaya inaad go'aankaaga qaadato wixii aad adigu markaa dantaada u aragto iyo danta bulshadu inay ku jirto aabaha haduu yahay inaad ku dhangadiso danta keenaysa rag kale oo waa saamaxay
عاقل إبراهيم مسؤولي سامحناكم اسمع أنا نورن ولي بيسك السيجارة سيدو كبر دينو يا مركب وأنا لما أنتي سامحناكم والسلام عليكم ورحمة الله